salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. maantay waxa aan eegaynaa mowduuc ku saabsan shaqooyinka ugu lacagta badan mustaqbalka iyo haddeerba. maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii kordhaya horumarka caalamka uu ka gaaray dhanka tiknoolajiyadda. Tiknoolajiyaddu waxa ay sababtay in shaqooyin badan laga maarmo, kuwo kalena loo baahdo. wixii gacan lagu qaban jiray looga maarmo mashiin in uu qabto, sidii uu u dhacay kacaankii warshadaha 1820kii ilaa 1840kii. Automation waa fududeynta hawlaha iyadoo la adeegsanayo qalabka casriga ah ee tiknoolajiyadda. dad badan ayaa colaad u qaba qalabka casriga ah ee tiknoolajiyadda maadaama uu meesha ka saaray shaqooyinkoodii ay gacanta ku qaban jireen, laakiin taas beddelkeeda dad kaloo badan ayay faa'iido u noqotay, kuwaasoo ku shaqeeya tiknoolajiyadda casriga ah ee cusub. daawadayaal, maanta barnaamijkeena waxaan ku arki doonaa 5 shaqo ee ugu lacagta badan dunida mustaqbalka iyo haddeerba aad loogu baahan doono. 1. Alternative Energy Engineers ama consultancy. dadka aadka loo baahan doono waxaa ka mid ah dadka ka dhaliya tamarta la isticmaalo iyadoo la adeegsanayn shidaalka ama awoodda nukliyeerka. tamartaasoo laga dhalinayo waxyaalaha kala duwan sida qulqulka biyaha, kulaylka qoraxda, hawada iyo dabaylaha. tamartaas oo ah mid la joogteyn karo ama la isku halayn karo. injineerayaashan bartay sida looga dhaliyo tamarta aan laga keenin shidaalka iyo awoodda nukliyeerka. waxaa looga baahan yahay injineeradan in ay sameeyaan tamar gaari karta dhammaan bulshada ku nool goobta looga baahan yahay tamartaas. 2. Wastage Engineering Management oo ah injineerada ku takhasusay dib u habeynta qashinka ama waxyaalaha la isticmaalay. sida la xaqiijiyay bini'aadamka ku nool daafaha caalamka waxa ay soo saaraan qashin gaaraya 1.1 bilyan kiiloogaram. waxyaalahaas oo dhulka dushiisa lagu daadiyo, qaarna lagu aaso dhulka hoostiisa, kuwo kalena badda gudaheeda lagu qubo. waxaa aad looga fakaray oona la fuliyay in dib looga faa'iideysto haraaga la isticmaalay iyadoo la sameynayo warshado dib u habeynaya waxyaalahaas qashinka ah. injineerada bartay dib u habeynta wastage recycling management ayaa aad loo raadinayaa, iyadoo shaqada tani ay tahay mid lacag aad iyo aad u badan lagu qabto, iyadoo jaamacadaha waaweyn ee dunida sida Stanford University iyo University of Cambodia oo ku yaala cariga Ingiriiska ay bilaabeen in ay baraan ardayda kulliyadda maareynta qashinka oo loogu magac daray Faculty of Wastage Engineering Management. 4. Flying Car Instructor waa macallimiinta baabuurta duusha. shaqooyinkan haddeer iyo mustaqbalka ayaa aad iyo aad loo raadinayaa. baabuurta ku duusha jooga hoose ee hawada ayaa la sameeyay sanadihii ugu dambeeyay, iyadoo la doonayo in laga kaaftoomo sida gawaarida, tareenka, mootooyinka iyo wixii la mid ah. gaadiidka caadiga ah waxaa looga cabanayaa saxmadda ay ku keeneen magaalooyinka waaweyn ee caalamka, taasoo sababtay dhimasho iyo dhaawac badan. dadka aqoonta u leh gaadiidka duula waxaa looga baahan in ay aqoon dheeraad ah leeyihiin iyo manhajka waxbarasho ee loo yaqaan STEM oo ah Science, Technology iyo Maths. macallimiintan baraya dadka gaadiidka duula waxa ay heli doonaan mushaar iyo abaalmarino aad iyo aad u sareeya inta la la'yahay dad aqoontan leh, suuqana ay gabaabsi ku tahay. shan. Blockchain Developer. micnaha developer sida aan ognahay waa horumariye ama kobciye, laakiin blockchain maxay tahay? blockchain waxa weeye isku xirka lacagta macluumaadka lagu isticmaalo bangiyada iyo internetka, iyadoo meesha laga saarayo qofkii labada daraf xiriirin lahaa.